iyadoo ay maanta magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland laga daafuray carwada bandhiga buugaagta oo sanad kasta waqtigan oo kala soo qaban qaabiso xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Haddaba waxa furitaanka madasha ka soo qayb galay wufuud ka kala socotay 23 dal oo beesha caalamka ka kala socday. Haddaba markii ay madashaasi soo dhamaatay waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, gudoomiyaha xarunta dhaqanka iyo qaar ka mid ah safiirada ka kala socday dalalka caalamka ee iyagu ka soo qayb galay madashaas. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta dhaqanka Jaamac Muuse Jaamac isagoo ka hadlay waxyaabaha ay kaga duwaneed bandhigyadii hore waxaana hadaladiisi ka mid ah sidii la idin sheegay waxay noo jooga 23 dal ka yimi waxay isugu jiraan dadkaasi waa dad qorayaal waa dad buugaag soo saara waa dad buugaagta si qaybiya waa dad siyaasiyiin waa dad mufakkiriin waa dad cilmi baarayaal waxa lagu soo qaban doonaa buugo kaliya ma aha waxa laga hadlayaa 6 cisho oo ay ku jiraan maalin kasta ugu yaraan 5 ama 6 meeting oo ay dadku kaga hadlayaan ama dhalinyaraha noqdaan ama dadka martida inoo noqota inta badan Soomaali baa lagu hadli doonaa sanadkan Carabi baa sessionada badankooda ay noqon doonaan dabcan sessionada qaarkoodna Ingiriisi bay noqon doonaan marka sanadkan wuxuu noqonayaa full inuu waxa la yiraahdo multi language oo bandhigu uu noqdo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka dibadda ka yimi ee halkan inoogu yimi ee sare u dhaafaya marka la isku daro martidayada iyo inta kale ee timi ama ha noqdaan wariyayaal dibadda geenaya warka ama siyaasiyiinta ha noqdaan inay sare u dhaafeen 29 qof dadka isrejistareeyay dibadda inooga yimi 29 ka qof waxaan doonaynaa inay noqdaan 29 safiir oo arka quruxdiina arka wanaagiina arka dhalinyarada Soomaaliland sidoo tahay arka qaranka Soomaaliland sidoo yahay dibadana geeyo fariinta oo u gudbeeyo waxaan soo aragnay meel ka duwan Afrikada inteeda kale oo buuga la jecel yahay qoraalka la jecel yahay suugaanta la jecel yahay gabayga la jecel yahay wada noolaanshaha la jecel yahay intaas baan doonaynay insha Allah Ilaahay wuu nagu guuleysiyay. Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay safiirada midowga Yurub iyo Jarmalka iyagoo ka sheekay horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay waxayna si weyn u amaaneen nabadda ka jirta Soomaaliland. Waxa hadalka soo gabagabay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed isagoo si weyn u amaanay xarunta dhaqanka hawsha culus ee qaranka u hayso wana kan isagoo arrimahaasi ka hadlay. dawladnimada maanta halkan waxa ka dhacay fanaad aad u balaaran waxana aad marka ugu horeysa ugu mahadnaqayaa Dr. Jaamac Muuse oo xaruntan inoo sameeyay halabuurkeeda lahaa aad buu ugu mahadsan yahay maanta eventkii halkan ka dhacay waxa uu ahaa mid xuduudda Soomaaliland ku kooban maaha waa mid maxaan ku dhahday si caalami ah looga soo qayb galay marka waxaynu u baahanahay mowduuca laga hadlayay carwada buugaagta oo tii 12aad maaha buugaag yar oo halkan la iska keenay waxa halkan maanta ku aragtay chance la siiyay oo buugaagta imika taala dhalinyaro qoraa ah oo aad iyo aad u qoray buugaag kala jaajaada suugaan ka hadlaya taariikhda ka hadlaya dhaqanka ka hadlaya jacaylka ka hadlaya wax fara badan bay soo bandhigeen waxa ka soo qayb galay maxaan ku dhahdayay diblomaasiyiinta ama safiirada dawladaha Yurub oo hogaaminayo safiirka EU-da midowga Yurub iyo safiirka dawladda Jarmalka oo wax badan ka maalgeliyay mashaariicda iyo barnaamijyada mucaawinada iyo xaruntan lafteeda. Axmed Maxamed Cumar Axmed Dayax Bulsha TV Hargeysa.